beesha caalamka ayaa soo saartay digniin adag iyo baaq ku aadan doorashada Soomaaliya. Shukri Caabi Cabdi ayaa qaadaa dhageysa. war-saxaafadeed ay soo saartay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamku waxay muujinayaan walaacooda iyo rajadooda adag ee ay ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhawaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday baarlamaanka federaalka ee xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha in aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfahamka siyaasadeed oo wadar gogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtigooda ku dhaca oo aanay carqaladeyn doonin ajandaha dib u habeynta Soomaaliya ama aanay abuuri doonin xasilooni daro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka ayaa lagu yiri. sidoo kale beesha caalamka waxay si joogto ah ugu baaqayeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis ballaaran looga gaaro noocyada doorashada ee sanadka 2020-2021 taasi waa sababta ay u soo dhaweynayaan go'aanadii ay madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadu ku gaareen magaalada Dhuusamareeb 22kii bishan Luulyo taa oo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaaro yoolka. saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb 22kii bishan iyo jadwalka waqtiyeedsan ee shirarka lagu sii ambaqaadayo arrinta la isugu keenayo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. hogaanka baarlamaanka federaalka xisbiyada siyaasadeed ee wakiilada bulshada rayidka sidoo kale war-saxaafadeedka ay soo saartay beesha caalamka oo aad u dheera ayaa dhanka kale waxaa lagu yiri isu day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamileyda oo isku daya inuu kaligiis dadka kale ku qasbo nooc doorasho wuxuu noqon doonaa mid aanay sharci lahayn lamana dhaqangelin karo haddii uusan helin taageerida lagama maarmaanka ah ee saamileyda kale. saaxiibadu waxay si dhow la socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan laga gaaro u heelanaanta arrimaha qaran ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo waliba in arrimaha lagu xaliyo wada hadallo iyo isu tanaasul waxa ay muhiim u yihiin sii socoshada taageerida caalamiga ah ee la siinayo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka oo u muuqday mid ku socda baarlamaanka Soomaaliya. ugu dambeyn beesha caalamka ayaa war-saxaafadeedkeeda waxay ku soo gabagabaysay beesha caalamka ayaa ku baaqday in si dhaqso ah loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo xubnaha dowladda federaalka qaybta ka ah ay uga mid noqonayaan guddiga farsamada waxayna diyaar u yihiin inay fududeeyaan howsha guddiga si howshaasi loogu soo dhameystiro muddada 2 toddobaad ah ee lagu heshiiyey taa oo ka soo bilaabanaysa taariikhda shirkii Dhuusamareeb. dowladda Sweden ayaa muujisay welwelka ay ka qabto isbedeladii ka dhacay Soomaaliya. Maxamed Abuukar Dabaashe ayaa faahfaahinaya. dowladda Sweden ayaa muujisay welwelka ay ka qabto isbedelkii sabtidii la soo dhaafay ee ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan xilka qaadistii ama eriyadii xukuumadii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre. wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Sweden haweeneyda lagu magacaabo Anda Linde ayaa codkeeda ku biirisay walaaca beesha caalamka iyo sida isdaba joogga ah isugu soo taraya qorshaha ku saabsan ama tallaabadii ay qaadeen baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ahaa tallaabadii xilka looga tuuray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre. Sweden waxay welwelka ay la wadaagaysaa midowga Yurub oo isbedeladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya waxayna muujinaysaa ama ay tahay tuhno ah in ay muuqanayso in wadadii lagu ballamay aan lagu socon. waxay muhiimadu tahay wada hadaladii dhawaa ee ka dhacay Dhuusamareeb iyo heshiiskii la gaaray in la tixgeliyo ayaa lagu yiri qoraalka kooban ee ka soo baxay dowladda Sweden. qoraalkaas oo lagu daabacay barta wasaaradda arrimaha dibadda ee Twitter-ka ay ku leedahay. Sweden ayaa ah dalka labaad ee midowga Yurub ee bixiya dhaqaalaha ugu badan ee Soomaaliya ee hadda la siiyo. walaaca beesha caalamka iyo cambaareynta loo jeedinayo tallaabadii xilka looga xayuubiyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre ayaa weli sii socota waxaana laga yaabaa inay soo baxaan dalal badan oo ina codkooda ku biirinaya wixii sabtidii ka dhacay fadhiga baarlamaanka. qoraal isla maanta ka soo baxay beesha caalamka ayaa si cad lagu sheegay inaan marna la aqbali doonin doorasho hal dhinac ah iyadoo dowladda Soomaaliya looga digayna qorshaha la xiriira muddo kordhin iyo doorasho qof iyo cod ah. doorashadaas oo ah midda madaxtooyada Soomaaliya garan xafiiska madaxweynaha iyo baarlamaankuba ay aad u riixayaan.
madaxweynihii hore ee dalka xasan sheikh iyo weliba xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka shiray xaalada dalka. gudoomiyaha xisbiga midowda nabadda iyo horumarinta ahna madaxweynihii sideedaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir gudoomiyey kulan muhiim ah oo mas-uuliyiinta xisbigu ay ugu arrinsanayeen arrimaha siyaasadeed ee dalka. mas-uuliyiinta ayaa ka dooday sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed islamarkaana laga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed ama amni darro. shirka ayaa sidoo kale looga hadlayay marxalada kala guurka ah ee dalku marayo iyo sida ugu habboon ee dalka ay ugu dhici karto doorasho heshiis lagu yahay oo xiligeeda ku qabsoonta. gabagabadii kulanka ayaa markaa laga soo saaray baaq ku aadan in si wadajir ah looga shaqeeyo samada bixinta dalka iyo abuurista jawi xasilan oo suuragelin kara wadatashi si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo lagu maareynayo marxalada kala guurka ahi. koonfur galbeed ayaa sheegtay in weli gurmadkii loo baahnaa aan la gaarsiin dadka fatahaadu ay saameysay afgooye iyo walaac ay ka muujeen. waxaa warkan faahfaahinaya cali xasan. wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa waxa uu sheegay in dadka ay saameeyeen fatahaada webiga shabeelle aan la gaarsiin gargaar ku filan. sidoo kale waxa uu sheegay inay ka walaacsan yihiin sida ay noqon doonto xaalad dadka ay saameysay fatahaada ee ku nool degmooyinka wallaweyn iyo afgooye ee gobolka shabeellaha hoose. waxa ugu baaqay hay-adaha gargaarka beesha caalamka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya in gargaar deg deg ah oo bani-aadinimo lala gaaro dadka ay saameysay fatahaadaasi. dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay mar labaad caddeynaysaa inay ka walaacsan tahay xaaladda bani-aadinimo ay ku jiraan dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose ee fatahaadu saameysay gaar ahaan degmooyinka afgooye iyo degmada wallaweyn. waxaan aad ugu faraxsannahay in gurmadka uu bilowday qoysas badan ay heleen cunto adeegyo caafimaad adeegyo dhinaca nadaafadda inay heleen laakiin weli aysan gaarin meeshii loogu talagalay. kulankan wuxuu noqon doonaa toddobaad leh ilaa iyo 10 beri u dambeysana howlahan waa socdeen shirar badan aan qabanay. waxaan dareemaynaa in gurmadka hadda uu jidkii loogu talagalay inuu ku socdo dadkana ay adeegyadii gaarayaan laakiin weli dadka intiisa badan baahidoodii lagama jawaabin. waxaan u mahad celinaa wasiirada koonfur galbeed oo xil dheeraad iska saaray in kulankan qabsoomo hay-adahana lagu gacan siiyo inay shaqadooda ay qabsadaan. dadka fatahaadda ay saameysay waxay u badiyeen degmada afgooye dad ka badan 40,000 oo qof ayay fatahaaddan ay saameysay. insha allah dadaalka waa socon doonaa waxaan xaqiijinaynaa dadkaasayto inay helaan kaalmada bini-aadanimo ay u baahan yihiin. dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed hogaamiyana ay ka go-an tahay in arrintaas mar walba la geliyo muhiimadda ay leedahay in la geliyo. waxaa hawl fiican ka haya gobolka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiyaha degmada oo degmada afgooye jooga oo shaqada isku dibradkeeda qayb ka ah. waxaan ballan qaadaynaa in hay-adaha ka shaqeynaya arrimaha fatahaadda loo fududeynayo shaqadooda wixii caqabad ee ka hor yimaada shaqadoodana aan la fududeyn haddii alla idmo annagoo ah xubnaha golaha wasiirada ilaa heer madaxweyne. waxaan baaq u diraynaa mar labaad beesha caalamka in arrinta gurmadka dadka fatahaadaha saameeyeen la dardar geliyo. waa u mahad celinaynaa doonarada iyo hay-adaha ilaa hadda shaqooyinka ka haya maxaa la yidhaahdaa degmada afgooye. insha allah waxaan ku dadaalaynaa in hawshaa la dardar geliyo. waxaan rajeynaa dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan afgooye iyo wallaweyn inay helaan gurmadkii u baahan yahay. dadka ku nool degmada afgooye iyo degmooyinka qaar ee gobolkaasi shabeellaha hoose ayaa waxaa saameyn ku yeeshay fatahaada webiga shabeelle uu ka sameeyey gobolkaasi iyadoona laga soo deerinayo xaalad nololeed ee dadkaasi. hagaaga dhegeystayaal weli warka duhur idaacadda risaale ayaad dhegeysanaysaan. markana shacab dhigay dibadbax ayaa lagu rasaaseeyey magaalada garowe iyadoo rasaaseyntaasi ay khasaare ka dhashatay. dhanka kale golaha wakiilada puntland ayaa ka shiraya xuduudaha maamulkaasi iyo la xisaabtanka xukuumadda madaxweyne deni. waxaa faahfaahinaya qodobkan waryaheena maxamed bootaan.
ugu yaraan ilaa iyo 4 qof ayaa ku dhaawactay kadib markii maanta ciidamada ammaanka Puntland ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo dibadbax ka dhigayay gudaha magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi. dibadbaxayaasha oo iskugu soo baxay bartamaha magaalada ayaa ka cabanaya lacago canshuur ah oo ay sheegeen inay ku soo dalacday wasaaradda ganacsiga Puntland. wararka ayaa waxay sheegayaan in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ciidamada ay isku dhaceen taasi oo keentay in loo adeegsado rasaas nool sidoo kale dadka dhaawacmay ayaa la dhigay goobaha caafimaad ee Garowe iyadoo markii dambe la kala dareeriyay dibadbaxayaasha. wali ma jiro wax war ah wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka Puntland oo ku aadan dhacdadaasi. xaaladda ayaa hadda degan balse wali ciidamada ammaanka ayaa ku sugan wadooyinka qaar magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. sidoo kale waxaa magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka ka furmay shirka golaha wakiilada dowlad goboleedkaasi oo ay ugu hadlayaan 2 qodob oo xasaasi ah halka ay dib u dhigeen qodob kale. gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa xaadiray xildhibaanada si loo hubiyo in tirada fadhiso uu ku furmi karo kooramkooda maanta. tirin iyo soo gudbin kadib waxaa bilowday kulanka fadhiga 27aad kal fadhiga 46aad ee golaha wakiilada waxaa la horgeeyay 3 qodob oo kala ah xuduudaha dowlad goboleedka Puntland gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag oo ay ku muransan yihiin Somaliland. marar badan waxaa dhexmaray dagaal salka ku haya kala sheegashada deegaano. la xisaabtanka xukuumadda oo waxaa su'aalo laga weydiinayaa waxyaabaha u hirgelay muddada ay shaqeynayso iyadoo wasiir walba loo wacayo si wax loogu weydiiyo su'aalaha ay qabaan xildhibaanada. qodobka 3aad waxaa dib loo dhigay ka doodistiisa bari oo Arbaca ah maadaama uu yahay mid xasaasi ah waxaana xildhibaanada iyo guddoonkoodaba isla garteen dib u dhigistiisa. qodobkaasi waxa uu dambeeyay warka duhur ee idaacadda Risaalaad ka dhageysanaysan ciduu seega dib ayay mar kale kaga daalacan karaan bartaan internet-kan ku leenahay ee ah risala.com.